Khalid bin Talal oo kamid ahaa qoyska boqortooyada wadanka Sucuudiga oo hore loogu xuray inuu ka soo horjeeday howlgal ka dhan ah musuqmaasuqa ayaa waxa lagu soo waramayaa in xabsiga laga soo daayay. qoyska Khalid bin Talal waxa ay baraha bulshada soo galiyeen sawirro muujinaya dhaxal sugaha Sucuudiga oo salaamaya isla markaana dhunkanaya eheladiisa. الوليد oo la dhashay Khalid waxa uu kamid ahaa tiro dada oo kamid ah qoyska reer boqor iyo mas'uuliyiin sarsare oo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq kuwaas oo xabsiga laga sii daayay sanadkii 2017 arrintan ayaa imanaysa xilli uu cadaadis caalami ah saaran yahay dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan oo ku aadan dilkii loo geystay wariyihii caanka ah ee Jamaal Khashoggi. dadka ka faallooda siyaasadda gobolka waxa ay sheegayaan in mas'uuliyiinta Sucuudiga ay isku dayayaan inay dejiyaan qalalaasaha ka dhex taagan qoyska boqortooyada Sucuudiga. sawirro ay baraha bulshada soo galiyeen qoyska Khalid ayaa muujinaya isaga oo la jooga wiilkiisa oo muddo sanooyin ah koomo ku jiray. dowladda wadanka Sucuudiga war rasmi ah iyada kama aysan soo saarin sii deynta Talal. wargeyska Wall Street ayaa ku waramaya in Khalid Talal uu xirnaa 11 bilood kadib markii la sheegay inuu ka soo horjeeday howlgalkii sanadkii tagay lagu soo xiray 200 oo qof oo isugu jira qoyska boqortooyada, wasiirro, ganacsato kadib markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuq. waxaana lagu xiray hoteelo ku yaala magaalada Riyaad ee caasimadda wadankaasi Sucuudiga. dadka falanqeeyo siyaasadda wadanka Sucuudiga waxa ay sheegeen inuu howlgalkaasi ahaa isku day dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan uu ku xoojinayo awoodihiisa. dabayaaqadii bishii January dacwadoogaha guud ee wadanka Saudi Arabia waxa uu sheegay in ka badan 100 bilyan oo dollar in laga helay dadkii musuqmaasuqa loo haystay. Siciid Axmed, tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah Star.